madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhankiisa kulan la qaatay wafdigan ka socda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee uu hogaaminayo ku-xigeenka ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ahna isuduwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay Peter de Klerk waxaanay labada dhinac ka wada hadleen arrimaha mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyo JBLG iyadoo la wada gorfeeyay dejinta qorshaha 5 sanadood ee soo socda ee mashruuca ku aadan sidii dhaqaale ku filan ay Soomaaliland ugu heli lahayd hirgelinta mashaariicda iyadoo dawladda Soomaaliland ay diyaar la tahay qaybteeda ku aadan suurtagelinta mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay kordhisay dhaqaalihii ay mashruuca ku bixin jirtay oo markii hore ahaa 17% imikana ay ka dhigtay 22% iyadoo mashruucan laga hirgelin doono 23 degmo doorasho ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo mudnaanta koowaadna la siin doono gobolada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadii kulanka waxa lagu lafaguray sidii loo heli lahaa kaalmadii ku aadanayd hirgelinta iyo meelmarinta barnaamijka maamul daadejinta dawladaha hoose ee Soomaaliland oo Soomaaliland intuu mashruucaasi socday wax badan ay ka faa'iiday Peter de Klerk ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ahna isuduwaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa ballan qaaday inay dhankooda diyaar la yihiin sidii ay u horumarin lahaayeen kaalmooyinka kala duwan ee ay Soomaaliland siiyaan kuwaasoo lagu baritaarayo kaabayaasha arrimaha bulshada Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta madaxtooyada Soomaaliland